السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan doonayaa inaan bulshada kula wadaago qoyskan oo ay ka xanuunsanayaan saddex caruur ah gaar ahaana waxay leeyihiin xanuunka macaanka. qoyskan oo saddex caruur ka xanuunsanayaan hadda halkan waxaa jooga laba caruur jooga waxay la nool yihiin xanuunka macaanka. halkan waxaan doonaa insha Allah inaan bal kelmad yar ka qabto hooyada dhashay ubadkan. haye way saarto xasanay caruurta waxay leeyihiin macaan. marka saddexdu waxay leeyihiin macaan. xanuunka bay leeyihiin intee lahaayeen imika waxay leeyihiin 4 sanadood waan ku arkay intii hore ay bukeen ma garanayo reer miyi bay ahaayeen 4 sano. marka dhakhtar madgiisi dhakhtarka markii amiga ka keenay baan dhakhtarka soo mariyay markaas baa la igu sheegay macaanka irbadana loo soo qoray. irbadaha may qaataan markaa irbadaha way qaataan. maxaad imika sileed marka xaaladooda maxaa laga bedeli karaa sileedahay bulshada wadaag xaaladooda wallahi imika aad bay u nimco badan tahay oo dee waxaan joognaa meesha qarfada ah. halkaad joogto bal bulshada u sheeg halkaad joogtaa ku noosha waxaan ku nooshay meesha la yiraahdo dadka barakacay meesha magaalo iidaan la yiraahdo loo soo raray. magaalo iidaan xag ku taala waxay ku taalaa qayb naasahablood xaggeeda dambe ku taala Hargeysa bari xaggeeda bari bay ku taala halaya agteeda waan idin ka fogtay magaalada xad bay naga fogtahay. caruurtan inanta waxa la adna leeyahay adna yar adnadeedu waa imisa adna 7 jir adiguna ya hinday adiguna imisa jir baa tahay 12 jir weeye. xaalada gaar ah ayaa u sii dheer maxaa la yiraahdaa adna yar iyo xubno kale qoyska ka midaba gaar ahaan xagga jirka waan rajaynaa insha Allah bal inaan isla aragno. adna yar horteed waa nooca horteedu runtii xaalad ka duwan xaaladda kale weeyaan ilaa gacmaha marka loo yimaado xitaa macaankeedu waa nooc ma kii dhacaya mise waa kii kacay waxay leedahay ka dhacay leedahay labada kale waxay leeyihiin ka dhaca adna yar waxay leedahay ka dhaca marka dhicitaan marka dhaca ka hor see noqotaa ka dhacdo way dee koomay gashaa koomay gelaysaa marka rafanaysaa ka xarjin insha Allah dilaa ka dhigo cid kasto kilibkana soo gaadho hamaha hay'adaha caalamiga hadan ama bulshada hadan ama qaybaha kala duwan qoyskan wuxuu nooga baahan yahay garab istaag ayuu nooga baahan yahay insha Allah. waa ubad u baahan inay farxadda dunida arkaan qayrkooda wax la qaybsadaan wax bartaan macoodu wuxuu qabanaya ay helaan innagana waa inaan markaa ku garab istaagnaa cid kasta wax awoodi kartaba insha Allah billahi ta'ala in wax lala qabto. Assalaamu calaykum.